diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka Giriga ayaa raadaarka ku xirtay diyaaradaha F-16 ee Turkiga oo xilliga galbinaya diyaaradaha waxduqeeya ee Mareykanka ee B-52 qorshe qayb ka ah howlgalka NATO. diyaaradaha F-16 ee Turkiga oo ka tirsan taliska raxanta 132 ee hubka iyo taatikada oo iyana hoostaga saldhigga saddexaad ee weyn ee taliska ciidanka cirka Turkiga ayaa galbiyay diyaaradaha Mareykanka ee B-52 taasoo qayb ka ah howlgal ay sameynaysa NATO. ha yeeshee intii lagu guda jiray howlgalka oo laga sameeyay hawada Slovakia si loo ilaaliyo garabka bari ee hawada NATO ayaa diyaaradaha F-16 Turkiga waxaa loo xil saaray ilaalinta diyaaradaha B-52 ee dalka Mareykanka kuwaasoo la ciirciirayay gantaalaha AIM-120 Amram iyo kuwa cirka ah ee AIM-9 Sidewinder. si kastaba se ha ahaatee intii lagu guda jiray howlgalka ayaa la sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidanka cirka ee Girigo ay raadaarka dul saarteen diyaaradaha Turkiga ee F-16 ah xilli ay ku jiraan waajibaadka NATO. raadarku dhegsiga ama wax loo yaqaano radar lock waa qaab la adeegsado marka ay diyaaraddu si hordhaca diiradda ama shiishka u saarayso bartilmaameed kale oo ay doonayso inay beegsato ama ay ugu yaraan u digto iyadoo raadaarka ku raadinaysa. sida xogta lagu helayo NATO ayaa jawaab degdeg ah arrintan ka bixisay waxaana diyaaradihii dagaalka ee Giriga laga saaray howlgalka ka socday gobolkaasi kadib markii ashtako ka soo gudbisay wasaaradda gaashaandhigga dalka Turkiga oo dhacdadan uga warbixisay mas'uuliyiinta sare ee NATO iyo sidoo kale u qaybsamaha arrimaha ciidamada militariga ee safaaradda Giriga ee Ankara. dalka Giriga ayaa dhankiisa isna waxa uu sheegay in 4 kamid ah diyaaradaha dagaalka Giriga oo iyaguna ahaa isla kuwa Mareykan sameeyga ah ee F-16 ay qaadeen tilaabo digtooni ah oo ay Athens arrintan ku wargelisay NATO iyo mas'uuliyiinta Mareykanka iyagoo ku dooday inaan la sii ogeysiinin in diyaaradaha B-52 ay ciidan galbin doonto. diyaaradaha Turkiga ee wax galbinayay oo 5 ah ayaa iyaguna sheegay in ay Giriga u sheegeen inay meesha ka tagaan. Giriga ayaa sidoo kale ku eedeeyay Turkiga 78 xadgudub oo uu ku sameeyay hawada Giriga iyaga oo soo galiyay 23 diyaaradood oo 15 ka tirsan ay hubeysnaayeen sida ay ku doodayaan. arrintan ayaa imanaysa xilli ay ciidamada cirka ee Giriga iyo Turkigu ay si joogto ah iskugula dhacaan gobolka Aegean Sea oo ay hawadiisa isku haystaan 3 jeerna ay dagaal ku sigteen nusqarnigii ugu dambeeyay. balse dhacdadani waa mid ka duwan kana qaraweyn intii kale waana mid yaab leh qaabka uu Girigu u bartilmaameedsaday ama ugu dhiiraday inuu diyaaradaha F-16 ee Turkiga uu raadaarka ku xirto xilli ay ku jiraan howlgal NATO ah. maxamed xaaji hadal samameedi